الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وزيرada baarlamaanka labadiisa aqal, odayaasha dhaqanka, saraakiisha, culimada, waxgaradka, dhammaan ka soo qaybgalayaasha meeshan ka soo qaybgalay ee ku abtirsada guud ahaan digil iyo mirfle. salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. salaan kadib waxaa wax lagu farxo ah inuu noo qabsoomo shirweynahan ay beelweynta digil iyo mirfle uga tashanayaan kaalintooda ay tahay inay ka qaataan kacdoonka dulmadiid ee lagu tirtiraayo argagixisada. waxaan mahad gaara mudan cid walba oo ka qayb qaadatay abaabulka iyo qabsoomidda shirweynaha. digil iyo mirifle waxa ay leeyihiin taariikh guun ah oo ku astaysan gobonamidoon, xaqu dirir iyo dulmidiidnimo. waxaa xusuus iyo tixraax mudan kaalintii hogaamineed ee ay beelweyntu ku lahayd halgankii SYL. waxaa sharaf ugu filan digil iyo mirifle inay ka dhasheen cabduqaadir sakhaawudiin, maxamed cusmaan baarbe iyo xaaji maxamed xuseen oo dhammaantooda hormuud u ahaa 13kii SYL ee saldhigga u ahayd xorriyadda u dirirka dalka Soomaaliyeed. deegaanada digil iyo mirifle waa dhulka keliya ee haddii argagixisada laga saaro aysan helayn meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo ee baay, bakool, shabeellada hoose iyo jubbooyinka. dagaalka argagixisada lagu hayo ee ka socda shabeellada dhexe iyo gobollada dhexe ee dalka waxaa ka dhalan doono inay argagixisadu ku soo jabto deegaanada koonfur galbeed iyo jubbooyinka. sidaa daraaddeed waxaa digil iyo mirifle ku waajib ah inaysan fursad siin argagixisada oo ay dhankooda iska tiiriyaan. waxaa ku haminaynaa in deegaanada beeshu noqdaan sidii lagu yaqiinay dal nabadeed oo xudun u ah barashada diinta, qur-aanka iyo islaamnimada saxda ah. argagixisada al-shabaab waxa ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku hayaan waa gumaysi iyo gumaad qaawan. waxaa alle mahadi ah in maanta la isla fahmay oo si wada jira loola diriraayo. wiilasha digil iyo mirifle waxay lafdhabar u yihiin, tiro fiicanna ka yihiin ciidamada qalabka sida ee meel walba maanta kula dagaalamayo argagixisada al-shabaab. waxaase in la xoojiyo u baahan kacdoonka bulsho ee beesha. digil iyo mirifle waxay taariikhdu u diiwaan gelisay martigelintii dowladda federaalka ah ee aan maanta harsanayn iyo kaalintii ay ku lahaayeen in dowladdu xamar timaado, caasimaddana ay ku shaqayso. jiil walba waa maalintiisa maanta annaga ayaa la nooga fadhiyaa waxa ay taariikhdu u diiwaan gelinayso beelweynta shirkan qabsata. Soomaali waa maa iyo maxaa tiri. waxaa la nooga fadhiyaa inaan maqaam magaceena la-eg ka qaadano dagaalka lagu ciribtiraayo argagixisada oo aan tabar iyo taag wixii aan leenahay isugu geyno qabashada ama la dirirka al-shabaab. waajid inta ay goodoonsan tahay muqdisho iyo baydhabo janaayna diyaarad loo kala raacayo, wasiirnimadaydu waa qabyo. mas-uuliyadda uu qof walba oo digil mirifle ah uu hayana waa dhaawacanta. ballanteenu waa guul, baaqeenuna
waa dulmidiin